إسلامك dalkayga jamhuuriyadda Soomaaliland dalkayga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkiisa ku maamulayo sinaan iyo cadaalad gudoomiyaha maxkamadda gobolka degmo Gabiley Qadar Ibrahim Jaamac ayaa maanta dhaariyay Axmed Maxamuud Shirwac oo ka mid noqon doona golaha deegaanka magaalada Gabiley kadib markii ay geeriyoto Alla naxariisto janna ka waraabiyay xildhibaan ka mid ahayd golaha deegaanka magaalada Gabiley Cibaado Maax Cilmi oo booskaasi banaysay waxaana halkan maanta lagu dhaarinayay goobjoog ka ahaa barasabka gobolka Gabiley maayarka magaalada Gabiley isku duwaha wasaaradda hawlaha dhulka iyo guryeynta xogayaha fulinta maayar ku xigeenka barasabka xigeenka waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka degmo Gabiley Qadar Ibrahim Jaamac ee dhaariyay xildhibaankan cusub ee ka mid noqon doona golaha deegaanka magaalada Gabiley waxaan halkan ku dhaarinay xubintii komishanka golaha deegaanka cusbeed ee buuxinayay golaha deegaanka gobolka Gabiley inagu hore ogsoonay inay geeriyootay marxuumad Cibaado oo halka banaysay halka waxaan ku marnay dhaartii sharciga ahayd iyadoo ay waajib tahay xubintu intaanay shaqada bilaabin in la mariyo dhaarta kala waxa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaankan cusub Axmed Maxamuud Shirwac ee maanta buuxiyay booska ka baxday xildhibaanadii geeriyootay Alla naxariisto janna ka waraabiye maanta way bishu tahay 16 bishii 6 2020 ayaa la dhaariyay xubintii banaaneyd ee golaha deegaanka oo ay ka geeriyootay Ilaahay naxariis jannaha siiyo Cibaado Maax Cilmi ugu maanta ku soo biiray tiimkana hore waanu wada joogno shaqooyin badan baanu wada qabanaynay madamin iyo tiimkiisa golaha deegaankana taayirkii ay wareejinayeen baan si wareejin doonaa aniguna la wareejin doonaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay barasabka gobolka Gabiley maayarka magaalada Gabiley iyo mas'uuliyiin kale oo xildhibaanka cusub ugu duceeyay inuu xilka Ilaahay ku asay maanta gudoomiyihii xisbiga kulmiye oo xildhibaan golaha deegaanka maanta koow ay noqon 16 bishii 6 2020 ونود علينا أحمد محمود شروع وهجامية وقويهن وهولكر قدكر إسلام كان تالنت كيسة شخصية ذي هاي هجامين. أنا وجد عيني حلبان عباده كبحضي قولها ديجان كا. أنك عصباي نقصو بيري قولها ديجان كجبلي حلبان كاسيو أي ما أنتو بلعبنت كل شقادي قرنكا. ما أنتو تاريخ الطايل حيو طبعا كي بشي لحد لبكوني لبعتن كل كان أي نكوب وحين الني حبنتي قولها ديجان geeridu banaysay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo xildhibaan Cibaado Maax Cilmi mar labaadna waxaan u duceynaynaa xubinta cusub ee golaha deegaanka ku soo biirtay waxaan u joognaa maanta inaynu walaalkeen xildhibaan Shirwac oo loo dhaariyay maanta xubintii golaha deegaanka maanta ay bishu tahay 16 anaga waxa runtii sharaf noo ah in waajibaadkii dastuuriga ahaa runtii sharciguna ay noo jideynayay in xildhibaanka cusub ee runtii u soo biiray golaha deegaanka xildhibaan Shirwac oo ah xildhibaankan maanta ka mid noqon 21 xildhibaan ee golaha deegaanka magaalada Gabiley ayaa ahaa xildhibaanadii ugu taageerada badnaa sanadkii 2012 markii ay golaha deegaanka magaalada Gabiley la dooranayay waxaana uu fagaaraha magaalada Gabiley ku soo bandhigi jiray taageero aad u laxad weyn Guuled Ali Ibrahim Kacse Sab TV Gabiley payc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo accountkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka payc